أمال حاج أحمد ميسان واحد كم يتهاي وفدقة وقامين مدحون كلهم سوماليلاند سعودال كوكو مريا دالكم بريطان waxaan ka soo qayb gasheen xuska sanad guurada 18 May kulama kala duwan ayaad la yeelateen jaalida reer Soomaaliland oo ku nool dalka Britain maxaad kala kulanteen bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay wixii aan kala kulannay jaalida reer Soomaaliland ee ku nool dalka Britain oo ah soo dhaweyn ballaaran alcadooyo iyo horumar ay dadkan rabaan inay ku tallaabsadaan maanta waxaad u ambabaxaysaan dalkii hooyo gudihiisa idinkoo dhawaan ku dhoofaya dalkan Britain gaar ahaan magaalada London maxaad kula laabanaysaan gudaha dalka waxaan kula laaban doonaa wixii aan kala kulannay bulshadii aan la kulannay waxaan kula laaban doonaa ee talo iyo tusaale ahaaba waan kula laaban doonaa haddii Ilaahay yiraahdo waxa kale oo kula laaban doonaa in ay waxyaabihii ay qaban lahaayeen horumarkii haweenku ee aan usoo bandhignay dadka ku nool UK iyo haweenkii halka Soomaaliland joogay horumarkii ay haweenku qaban lahaayeen intii aad ku sugnaydeen dalkan Britain waxa aad booqashaad ku tagtay magaalada Henley oo ku taala duleedka magaalada London magaaladaasna waxay mataanay yihiin magaalada Boorama ee xarunta waa gobolka Awdal maxaad ka wada hadasheen mas'uuliyiintii iyo madaxda halkaas joogay naantaas socdaal gaar ah ayuu ahaa oo aan ku tagnay magaalada Henley sidaad ka warqabtay adigu ka dhawaajisay magaalada Henley waxa ay la mataan tahay gobolka magaalada Boorama gobolka Awdal oo ahaantii magaaladii anigu aan ka soo jeeday muddadii hore ee dawladihii hore ee dhexe Soomaaliya ay burburtay iyo intii ka horeysay intii ka dambeysay xiriirka Henley iyo Boorama aad iyo aad u socdaa marka waxaan ugu tagnay in aan sii arkayno xiriirkii ka dhaxeeyay reer Henley iyo reer Boorama aad iyo aad wana loogu soo dhaweeyay guurtidii Henley iyo horumarkeedii iyo qorshayaasheedii iyo wixii aan wada qabsanayn oo kasoo wada hadalnay sidaan awalba uga wada hadli jirnay maadaama aad tahay la taliyaha madaxweynaha Soomaaliland ee arrimaha haweenka muddadii aad xilka aad haysay maxaad ku soo kordhisay arrimaha haweenka Soomaaliland maxaase ku qorshaysan inaad qabato maantii muddadii aan xilka haynay arrimaha haweenka Soomaaliland wax badan baa ku soo kordhay inaan kor u qaadno haweenka Soomaaliland ee u shaqeeya dawladda kor baan u qaadnay inaan kor u qaadno oo aan mar walba ka shaqeyno haweenka caafimaadka Soomaaliland oo meelihii xanaanooyinka MCHada hooyada iyo carruurta laga talaalayaan u bedelay meel ay haweenku adeegooda caafimaad oo dhan ay ka heli karaan dabcan waxaan ka shaqeynaa si aan u dabcinahay siyaasadda haweenkaas iyo garaadkooda siyaasadda si u kordho ee uga mid noqon lahayn meel kastoo masab dawli uu jiro iyo baraafidba marka wallaahi waxaan aad ugu mashquulsanahay wax badan baa nooga qabsoomay hay'adaha xuquuqal insaanka gaar ahaan kuwa ku shaqeeya arrimaha haweenka waxay sheegaan inuu kor u kacay nambarka tacadiga ama arrimaha la xiriira kufsiga haweenka Soomaaliland ogaalkaaga arintaas maxaad ku oran lahayd ogaalkayga arintaa waxaan ku oran lahaa annagu laftarkayga waxyaabahan la dagaalano weeyaan waxna way jiraan waxna waa lagu sii darayaad moodaa marka inuu ku raad joognaa bal tirada inta leeg ee la soo saaray inaan ka helno hay'adihii dawliga ahaa ee arrimaha ay ku taqalluqay in ay arrinkaasi warcad ka soo saaraan ana la ogaano dib hay'adaha kale ee international waxyaabaha ay keeneen runtii waana kala shaqeynaa waana ka xumahay hadii ay jirto waxaan jecelahay in waxaasi la joojiyo lagana hortago aad iyo aad u dadaali doono waana ka shaqeyn doonaa maadaama aad maanta ka ambabaxayso magaalada London waxaad kula dardaarmi lahayd haweenka qofka jooga ee ka soo jeeda Soomaaliland kula socodka intii aan aragnay intaan arkin waxaan ku oran lahaa waa inuu dadaalnaa waxaan isku leeyahay go'aansanay rabnay inaan ka shaqeyno gaar ahaan haweenka xanuunsanaya ee dhimirkooda uga yihiin inaan dhakhtarradoodii aan dalkooda ka hirgelinahay waa inaan ka shaqeynaa waa inay midnimada ilaaliyaan waa inay isku duubnaadaan waa inay u dadaalaan si ay Soomaaliland darnimadii ay dalkii ka muuqatay halkana inay ka muujiyaan sida wax badan oo aan ka shaqeynay marka waxaan leeyahay haweenka ayaa uga mariya haweenku waa cudurkii lafdhabartii bini'aadanka marka waxaan leeyahay bal dadaalkiina waa inaasi computerkayga alxamdulillaah Soomaaliland aad iyo aad baan amalkaaga mahadcelinaa waraysi gaarka ayaa waad mahadsantihiin dhammaan saxaafadda iyo ciddii magacayga